السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاليق soo dhawaada ku soo dhawaada channelkeena Iskaashi option traders aan ugu talagalnay inaan ku caawino dhalinyarada Soomaaliyeed si ay uga shaqeystaan suuqa xorta ah ee IQ option trading platform dad waxaa jira lacag ku bixiya dad lacag ka qaata jiro anaga ma dooneyno waxaan rabnaa in aan si free aan ku caawino dhalinyarada Soomaaliyeed okay ku soo dhawaada channelkeena Iskaashi option traders Iskaashi option traders wuxuu leeyahay Telegram group videoga descriptionkiisa ama comment ugu horeeya tag adiga arki doona descriptionka oo ku soo dhigaynaa insha Allah group kaga soo bir aan ku leenahay Telegramka Iskaashi option traders okay halkan waxaad ku qoraysaa Google Chrome ayaan joogaa halkan waxaad ku qoraysaa www.iqoption no space mu dhaxaysiinaysa iqoption.com okay markaad ku qorto automatically wuxuu noo keeni doonaa website isku day in aad fahanto waxaan sharxayo waxaan waa very easiest wax walba qalbiga u soo jeedana orod ayaa lagu bartaa wax adag ma jiro adduunka isku day stepka aan raacayno istiraatiijiyada aan ku dabaqi doono insha Allah hadda waa basic ayaan ka bilaabinaa muuqaalkan sharaxaad guud oo platformka aan ku sharxi doono noqon doona videogan laakiinse dad waxaa jira video waxaa jira soo bandhigo oo macnaha markay khasaare sameynayaan qariyaan anaga ma qarinayno wixii khasaare wixii faa'iido khasaare hortaada aan ku sameynayna anagoo isticmaalayna istiraatiiji laakiin istiraatiijiyada ay isticmaalayna hadda maanta 5 trade ama 5 mar aan suuqa galo laba mar ama hal mar aan khasaare ama 10 mar aan suuqa galay laba mar aan khasaare there's nothing to change wax miga bedelayso marka isku day in aad ku dabaqdo istiraatiiji insha Allah muuqaaladeena way badan doonaan shaqadeena way badan doontaa isku day inaad nala socoto haddaad bas ka dhacdo waa adiga iyo nasiibkaaga waa kana suuqa IQ option trading platform lagu sheego waa kana platformkii all the way candlestick waxa la jiro candlestick sharaxaad ugu badan aan ku bixin doono ama sharaxaad ugu badan aad qaadan doontaan waxa waaye candlestick kana lagu magacaabaa candlestick kana la candle la dhahaa all the way candle la dhahaa all of them candle way laakiin color way kala duwan yihiin kan waa green this one waa guduud guduudka waa sell greenkana waa buy marka mar walba u fahan greenka inuu buy yahay guduudkana sell yahay taas waa fahantay mideeda kale waxaa jiro sellka iyo buyga qaabka u shaqeeya meeshaas ay joogto idinkaaga jawaabi doona insha Allah su'aashaas waa ii taala okay platformka aan isla fiirino this one intaan aan isla fiirino halkan waa time trade-ka aad galayso halkan waa amount-iga aad investigaynayso aad rabto inaad trade-ka ku gasho this one waa profitable kaaga percentage-kiisa hadda 91% inta $100 investing ii saaran amount invest waxaan faa'iida $91.28 percentage-kaas ayaa ku maamulo 87 hadduu yahay $87 ayaan qaadanaa boqolkiiba boqolka aan dhigto 87 aan qaadanaa hadduu 76 yahay boqolka aan dhigto $76 aan qaadanaa percentage-kan ayaa ku maamulo percentage-kan hadduu 76 ama marmaro 69 gaaraa 69 gaaraa markuu yahay meelahaas 69 iyo 75 suuqa ka dhumo waa very dangerous faa'iido fiican ma ka helaysid suuqan qaaba u raacda ma laha adigu faa'iido fiican meesha ku haynin haddana suuq qaaba u raacda aadan lahayn an volatility suuqa waa lose growaysa boqolkiiba haddaad faa'iidana boqolkiiba 5 trade daa sameeyso waxa laga yaabaa 2 trade inay weyn kugu dhacdo suuqa wuxuu yeelanaa wareer oo yeelanaa meel loo raaco ma laha marka wuxuu fiican yahay markuu 87 ama 80 hadduu yahay suuqa waa la jibin karaa hadduu 95 91 maro 99 tagaa meeshaan u jeedo maray 100 noqonaysaa waa very hit profit $100 aad dhigato waxaad faa'iideysaa 100 kale ku saarmayso
waa profit aad u weyn. Halkan waa higher and lower. This one waa taqaana calaamadan greenka waxay u taagan tahay kan buyga ah. Waad ujeedaa kan dhalkan socdo buyga ee greenka u taagan yahay. All the way hadda green ka taabtay. Suuqan guduud ku socday. Guduudka waa sell mar walba hoos soo aadaa. Buygana dhanka sare u aadaa. So higher aan taabtay calaamadan green ka taabtay waxa ii socotay guduudka ii socday suuqa guduudka ku socday. Waa lose garooba. So waxaan u raacay macnaha non option aan ku galay. Macnaha non direction aan ku galay suuqa. Haddii aan lower ka aan taabto lower iyo higher waa kala taqaana. Higher waa sare, lower waa hoose. Marka mar walba sell wuu daataa. Buygana kor ayuu u socdaa. Midaas maanka ku hay. Marka lower kan taabtay suuqaas oo higher u socda like this. Higher u socday. Kan waxaa socda higher, buy aa socda. Marka waxaan u galay kana taabtay down aan u galay. Marka waa lose garooba lacagteeda meesha ku lumay. So ka firjignow inaad isku qalardo. Midaan waan ka wada hadalnay time-kan waa time-ka aad ku trade gareynayso. Sharaxaad gooni ayaan ka bixin doonaa. Halkan waa amount-iga aad invest gareynayso. FX waxay ugu fiican tahay forex trading waxay ugu fiican tahay IQ option-ka. Inkastoo dadka ay dhahaan qamaar wax qamaar ma jiro wax walba strategy ay leeyihiin. Programkan qofka soo saaray strategy ku soo saaray. So marka waxaad kula dhaqmaysan waa strategy. Wax walba strategy ay u baahan yihiin. So hadda amount ugu jiro waa account practical 10,000 lagu siinaa 10,000 lagu siinaa. Hanaad waxa ugu jirto 136,000. 136,000 $512.9 cents ay ugu jirto. So haddaan invest gareynaa for example waxa invest gareynaa aan halkan ay mid waxa invest gareynaa $1 fiiriya. $1 waxaan ku helaa 91 cents aan ku helaa. Hadda suuqan 100% ahaa lahay waxaan helayaa halkii $1 ay kor lahayd. So haddaan trade gareynaa fiirso. Inta account kan $1 un baa ka go'ay. Halkaas dollar aan invest gareey hadaa qasaar halka un baa qasaar laakiin forex adoo 1 cent ama 10 cent adoo ku gashay wuxuu ku dhaqaaq $15 ama $20 oo lose hadaa faa'iidana dhaqaaq $20 ilaa $25 ilaa $30 faa'iide. Marka difference-ga u dhaxeeya IQ option iyo forex waa difference-gaas. Waxa inta geliso box-kan amount-iga aan invest gareyso un baa ka go'aya account-kaaga hadaad faa'iidana faa'iidadeeda ku soo dul saarmayso. Okay hadda waa in tusaa هذا أنا استراتيجي وحيابي اللي معناه أنكو استعماله ماتيريال كما أنا ندقن لكن واجلا أنا أركت ربع أموتي كجو أيو أكون كبراكتيس كا مشان ريل أكون أي نقدون تريل أكون دافرت سو هذا وتريد جرين هنا بنك سر عنقل هاير أوكي أصل أرجنا تريد كان معنى إيه مكانه سداد دلوس كله عم بروفيت كله سو حرب أنا فهمت أنت وحكو جرتو أوجده أنت وحكو جرتو هذا $12 ahead $10 noqoto u jeedaa soo halka dollar ayaa ka go'ay soo haddaan faa'iido halkan dollar waxa ii saaran 91 cent intan 9 cent ay taalo $1 kala helaa 9 cent ay yaalo ilaa 91 oo ii buuxsamay haddaan faa'iido soo hadda faa'iido ay socoto dii faa'iido ku socoto inta ka arkay inta hadda minus waa mu jeedaa inta minus waa haddii faa'iido ku socoto calaamad green ka noqonay waa ka green noqonay all the way plus waa plus ku socdo so difference-ga u dhaxeeyo waa ka okay hadda trade kan I think inaa win gareyn doono ma sha Allah direction-ka u socda iska fahmay all the way waan raacay no material ku isticmaalay way suuqan hadda indhahaaga barto ama practice badan sameyso adoo material isticmaalin ayaa indhaha ay contact ula macaamili kartaa suuq hadda waa win gareena trade-ka waxay noqotay 512 noqotay waxay ahayd 512 isla daqiiqada waxaan faa'iiday $1 intuu 9 cent ii taalay 9 cent aan soo faa'iiday waa $1 okay waad u jeedaa okay inta area-dan waa idin sharxay okay aan isla fiirino qaybtan sare aan isla fiirino qaybtan sare aan isla fiirino halkan waxaa ku qoran deposit haddii aad rabto real account inaad deposit gareyso halkan aad ka deposit gareynaysaa meel kale kama raadinaysid account-kaaga waa kana user-kaaga
halkan ayuu ka muuqdaa in sawir aad saarato ama bilaa sawir ha ahaado amountiga lacagtaada halkan ayay ka muuqan doontaa waxaad faa'iiday waxaa khasaartaba halkan waxaa laga dalbadaa beariska ama lacagaha aad rabto inaad ka trade garayso hadda waxaa saaran euro USD video waxaan ku sharxi doonaa lacagaha qaabkay u kala baxaan that's good hadda lacag waxaa ii saaran euro JBP ay saaran waa lacagta euro iyo Great Britain pound so haddii aad rabto inaad lacag kale kusoo darto haddii aad doonayso inaad lacag kale kusoo darto meeshan ayaad balaskan ayaad taaban doontaa lacagihii idil halkan ayaad ku arki doontaa okay hadda aniga waxaa badanaa aan trade garayno waxaa waaye option binary and digital oo u jeedaan binary and digital waxaan trade garaynayna waxaa waaye binary and digital binaryga iyo digitalka u jeedaa okay suuq forex trading oo ku jira waa kana waad ka trade garayn kartaa option waxaa inta yaalo forex oo u jeedaa forex okay mid kale waxaa yaala stocks bangiyada iyo waxyaabihii kale ka trade garaynaysaa waad u jeedaa bangiyada ayaad ka trade garaynaysaa halkan cryptocurrency-ga waxaad ka trade garaynaysaa lacagaha electronic like bitcoins waad u jeedaa okay waa idila fahantaan u malaynaa xoogaa laptopka dib la-aaniga dabaan gelinayaa dhib ma lahan raalli ahaada so anaga waxaan trade garaynayna waxa waaye binary and digital okay binary and digital binary aan fiiriyo binary percentagekiisa waxaa weeye 94% suuqa hadda 91 oo ahay fiir 95 oo noqday waa suuqu isbedelaya suuqa mar walba percentagekiisa kor usii kaco uu ka profit fiicnaan doonaa qaab aad u raacdana way lahaan doonaa digitalka aan fiiriyo binary waa 94 digital waa 95 mujeedaa adiga mar walba waxaad trade garayn kartaa mid kuu profit fiican the same way that mid kuu profit fiican ayaad qaadanaysaa forex-ka aan fiirino suuqyada forex waa ka trade garayn kartaa stocks-ka aan fiiriyo stocks-ka waxaa kamid ah Facebook Apple waa trade garaynaysaa Tesla Amazon waa kana waa ka trade garaynaysaa Netflix waa taqaanaa rag filmaanta ka daawada okay Zoom sensation Zoom video lagu soo galo live-ka waa ka trade garaynaysaa waxyaabo badan aad taqaanaa inta ku jiro Twitter Google so inta waa stocks-ka cryptocurrency waa kuwan lacagaha electronic bankiga waa bitcoin kamid ah Ethereum waa ujeedaa lacagaha aad taqaanaa meeshan ku jiro soo badanaa laakiin ma trade garayno okay waad ujeedaan lacagaha goldiga inta laga trade garaya iyo silverka waxaa la dhahaa commodities ETFs marka anaga waxaan u baahanahay waxaa waaye forex-kan waa ka trade garayn kartaa optionskan binary and digital aan ku trade garaynaa so insha allah macluumaad badan ayaad ka fahmi doontaa lacagahanne waa idin sharxi doonaa insha allah soo sharxan ayaan muuqaal kaaga soo sameyn doonaa okay halkan trade badan aan sameynaa soo lacaga badan ii furan inta lacaga badan aan soo gelinaa hadda JBP USD soo geli haye euro NZD lacagahan waa baran doonaa waa idin sharxi doonaa insha allah okay hadda afar lacaga ii furan balaskan haddaad taabto hay afarta lacag ii soo muujiyaa dhihi karaa mid walba waa ujeedaa higher and lowgeeda ii wataa mid walba higher and lowgeeda midaan trade aan bashka siisanaa midaan trade kalaan ka gelaa midaan trade kalaan ka gelaa midaan trade kalaan ka gelaa waan ku raaxaysana waa daawanaa so trade-ka aad gashin aad la socoto waay forex trading maaha meesha forex haddaad suuqaas forex aad ka ganacsato trade-ka aad gasho 2 hour ama 3 hour above aad sugaysaa so wuxuu ugu duwan yahay waa sidaa okay halkan waxaa ka dhiganaysaa halkaaga xaba ayaa ka dhiganaysaa labaa ka dhiganaysaa xitaa laba lacag ii soo muuji NZD ujeedaa inta waxaa euro JBP iyo AUD card waa Australian dollar iyo Canadian dollar
okay lacagahan waan baran doonaa, there's no problem. Okay asla fiirin anaga platformkina maanta ku tusaan rabaa. halkan waa waxaa laga maamulaa candleka timeka ku soconaya candleka iyo materialka iyo indicatorka lagu suuqa lagu analyze gareynayo ama lagu isticmaalayo. halkan waa ujeedaa total portfolio waan furi doonaa. okay inta waa trading history, tradyada aad samayso waxaad win garaysa waxaad lose garaysa intaad ka fiirinaysaa. qofka hadduu kuu faana xitaa tradyal badan aan win sameeyo hadduu ku dhaho trading historyga furanaysaa, waxaad arkaysaa tradyada idoo sameeyo wuxuu lose garay wuxuu profit garay. inta waa adiga jat support waxaa ku jiro jatis ama groupyo waxaa ku jiro oo caalamka idil dadka traders ku jiro. suuqyada sawiraa laga soo qaada maanta suuqaana fiican ka faa'iideysta, hebel qofaa kasoo hadlaya, all with traders aa meesha ku jiro. halkan waa leaderboard, dadka hogaaminaya tradeka IQ option levelo leeyahay. haddii aa hit profit aad sameyso leaderboardkan ayaa lagugu soo bandhigi doonaa kaalintaad ka gasho. that's good. market analyze halkan waxaa laga fiiriyaa technicalka iyo suuqyada laga analyze gareeyaa ama suuqa xaaladihiisa laga ogaadaa. halkan waa videos tutorials, video waxaa ku jiro oo IQ option ugu talagalay muuqaalo oo 3 second 1 minute 2 minute soconayo oo adiga tutorials ah. halkaana more information badan aad ka ogaan doontaa. okay intaas ayay ka caawin doontaa. meeshan suuqa percentagekiisa ayuu kuu sheegaa higher and lowgiisa waad ujeedaan. hadda higherka 63% haysto, that 6na waxaa haysto sorry lowerka 64% haysto. okay higherka that 6% haysto. halkan candleka laga saxaa inta candleka timeka ku soconayo waa inta materialka lagu analyze gareynayo waa candleka. halkanna waa indicatorska you see. okay aan fiiriyo candleka, meesha candleka aan ku hormaro, meeshaan ayaad ku dhufanaysaa candleka. marka hore markaad geli doonto candleka san ayuu kugu soo muuqan doonaa. candleka intaad ka saxaysaa meeshaas chart type ayaad ku dhufanaysaa. waldo waxaad dooranaysaa midka labaad ayaad dooranaysaa, candlekana dooranaysaa, daarkana dooranaysaa, freestyle midaad jeceshahay. halkan fiir candleka dhexda ayuu ka duleelaa laakiin the same buy sell way kala saaran yihiin, isku color ma ah. midka dhexda oo ka buuranaan rabaa caadi oo colorkiisa wato. halkan waxaa laga saxaa. halkan waa graphical toolska suuqa lagu analyze gareeyo, horizontal lineka suuqa, support line iyo resistance line waxa la dhahaa jiro. analyze-ka ayaan ku baran doonaa. suuqa celcelis meesha laga soo celceliyay ayaa lagu ogaadaa. trend line suuqa jiifka ayaa lagu analyze gareeyaa. so waan usoo laaban doonaa, tan waqti ayaan gelin doonaa. waa istiraatiijiyada midda aad ku isticmaali doonto waay. okay halkan waxaa laga fiiriyaa indicators. inta aan fiiriyo sorry yaa ku degdegin graphic toolka aan kasoo gudubna. inta timeka waay, timeka candleka waay 5 second 15 second macnaha 1 minute haddaan ka dhigo 1 minute-ka aan ka dhigay every candlekan oo kale hadda 1 minute oo soconaa. after 1 minute waxaa samaysmi doono candle kale. hadda ujeedaa meeshaan hadda marayso ujeedaa meeshaan 53 second 49 second marayso 48 waa candleka 1 minute candle ay saaran. hadda hadduu every that 1 second waxaa samaysmi doono candle ayaa samaysmi doona. asla fiirino waqtiga that 8 that 7 that 6 that 5 that 4 that 3 that 2 that 1 candle cusub aa samaysmaayo. waa kana fiiri another candle aa samaysmaa ujeedaa inta ma yaala candlekan. every 30 second waxaa samaysmi doona candle, laakiin waxaan ku trade gareynan waa 1 minute. haddaa 5 second ka dhiga fiiri ama 5 second ka dhiga candleka speed ku furmaayo waad ujeedaa fiiri every 5 second candle aa samaysmaayo. 1 2 3 4 5 candle cusub aa samaysmaayo. 1 2 3 4 second yar 5 second kadib candle aa samaysmaayo. so isku xigana ujeedaa mid kala samaysmaayo fiiri kan soo socda mid kala samaysmaayo. so aniga waxaan ku trade gareynan waa 1 minute time frame. istiraatiijiyada ayaan kugu bari doonaa insha Allah. okay halkan waa indicators. waa ila socotaan umaleynaa dhanka hoosaan marayaa haddaan idin calaamadeeyo. halkan waa indicatorska suuqyada lagu ogaado.
badanaa indicatorada lama aamini karo, laakiin qaar waxaa jiro oo adiga mostly la isticmaalo. Halka indicatorsiyada Bollinger Bands indicator la ku jira, away some accelerator aad ujeedaa, bubbler, okay, moving average yada kamid ah, Bollinger Bands waa kan hadda idin sheegayay, okay, relative indicates waxaa la lahaa relative index level waxaa la lahaa jiro, fahanti, okay, moving average, higher low, waxaa ku jiro more indicators ku jiro. Marka actually waxaa laga isticmaalaa indicator caama laga isticmaalaa, Bollinger Bands oo kale waa la isticmaalaa, moving average oo kale waa la isticmaalaa. Marka indicator badan ku jiro, so waa qaybta laga isticmaalo indicatorada caamka laga isticmaalo oo ku bari doonaa insha Allah. Okay, halkan waa qaybtan hoose waa minute-ka, 1 day, that day, 1 day, 3 hour, that minute, candle-ka ku saaran waaye, event wax kama bedelayso hadda inta 1 minute saarato, candle-ladan wax kama bedelayso. So waan baran doonaa ayagana candleskan, macnaha 1 minute candle-ka xaaladda maraya fiirina, 15 minute xaaladda maraya fiirina, laakiin every candle wuxuu soconaa that 1 minute oo soconaa, every candle wuxuu abuurmi doonaa 30 minute uu abuurmi doonaa, 30 minute candle usoo abuurmi doona. Okay, insha Allah waxaad fahantay qaybta commentiga, waxaa fahmi weyso qaybta commentiga noogu soo qor, linkiga kusoo bir groupka telegramka haddii aad qof kamid ah ama member kamid ah telegramkeena ku jira haddaad tahay oo daawanaysa, insha Allah groupka discussion kusoo reeb, groupkan discussionka oo IQ option online strategy kusoo reeb wixii macluumaad ah aad fahmi weyso, halkaas oo joogaan dad aad iyo aad ku caawin doona insha Allah, anigana aan kamid ahay. So inta isla fiirino, meeshaan isla fiirino trading history, hadda trade-yada aan win garay waa kana, waa kii hadda halka $1 aan galay waa 91 senti aan qaadanaya, kasoo gal $91, $100 oo gal $91 oo ku qaatay, $100 kale oo gal $91 oo ku qaatay, $100 ujeeda wixii lose wixii profit halkaan ka arkaysaa. Marka trading history Allah agartaa maleena insha Allah muuqaalkan halkaan ku ekaan doonaa, basic-an ugu talagalay halkaan aan fiirino chartska, English chart iyo crypto chart. Crypto chart-kan waxaa ku jiro real Bitcoin iyo Netle iyo macnaha waxaa ku jiro dadka lacagaha oo adiga electronic banking-ka macnaha ka shaqeysto. Halkaan waa chart-ka macnaha professional-ka reer macnaha IQ option ku jiraan. Hadda ku dhufto fiiri, for example aan fiirino sawiraha suuqa laga soo qaadaa, waa lasoo dhigaa, waa kana ujeedaa Nimanja B asoo dhigay sawirkan. Suuqan profit wuxuu ka qabtay 96 senti oo ka qabtay. Suuqa waa maanta suuq aad u macaan, 96% waa uu taagan yahay, ujeedaa 96% waa. Marka suuqa ku macaan yahay kale waa la isla soo share gareeyaa groupkan, waa waxa ku jiro professional traders dadka xamaasho suuqa. Okay, kalaabo aan isla fiirino, aniga waxaan concept inaan ka ogaanaa rabnaa leaderboard-ka kaalinta koowaad waxaa hayo qof yar Indian ah oo Joseph lagu magacaabo, $31,000 oo ka sameeyay, $31,934 oo ka sameeyay, asaa kaalinta koowaad haysto. Kaalinta labaad waxaa haysto koow Brazilian ah, Cameron G, I don't know, Cameron G wuxuu sameeyay 30,000, waa naag waaye. Cameron G waxay sameysay $30,014. Kaalin saddexaad waxaa haysto Turkey waaye, yes Turkey waaye, waxaa la lahaa Faisal Y, $17,000 oo ka sameeyay, $17,000, $296. Marka kaalimahan adiga haddaa super trader aad tahay ama hit trader haddaa tahay, kaalimahan waa soo geli doontaa. Hadda Soomaaliya ma ku jira, aan fiirino, aan dib u raacno, aan dib u fiirino calanka Soomaaliya raadi. Anaga hadda waxaa laga yaabaa reer boqolleyla inaan nahay. Okay, calanka Soomaaliya ila fiiriya, aad jeedaan
any country uu ku jiraa any country qofaa 2,000 iska sameeyey dadkan 2,000 iska sameeyeen anaga 2,000 waa dad okay meeshaan ka ogaanaysaa every country aa ku jiro oo macnaha ragga ka trade gareeya so muuqaalka ay ugu sii dheeraanin inta market analyze ka laga fiiriyaa suuqa ugu fiican suuqa ugu liita okay kaalinta koowaad kaalinta labaad kaalinta koowaad waxaa galay lacagta maxaa waaye adiga aan maleynaa oo adiga cryptocurrency-ga Canadian NOK GD JBY okay inta video tutorial ku jiro okay intana more information kala ka ogaanaysaa tournaments iyo help iyo alert okay muuqaalkan halkan ayaan kusoo gabagabeynayna insha Allah muuqaalka aad u dheeraaday instruction platform-ka aan ku sharxay baan ka doonay muuqaalkan insha Allah muuqaalka xiga lacagaha ayaan ku sharxi doonaa lacagaha iyo macnaha lacagtan JBB USD JBB dadaan fahansaneen lacagtan magaceeda iyo wadankee tahay iyo macnaha qaabkay u shaqeeyaan ayaan ku sharxi doonaa videogan xiga insha Allah waxaan rajeynaa muuqaalka inaad ka faa'iiday wixii aad fahmi weysay qaybta commentiga nagu reeb haddii aad groupka Telegram ku jirto oo aad YouTube ka daawanayso wixii adiga cabasho aad qabto groupka Telegram-ka noogu soo reeb insha Allah laga caabi doona haddaa YouTube ka daawanayso kusoo biir YouTube commentiga ugu horeeya ama description ku yaala groupkeena linkigiisa insha Allah kusoo biir waad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mideeda kale subscribe ayaa liiloobin channelka waa channelkiina anaga muhiimadeena ma ahan in aan macnaha lacag idinka sameyno marka adinka waa inaad macnaha wax free aad bartaan maanta qofka walaalka hadduu ku baro qaabka malaayga loo soo dabto macnaha asigu mar kale uma baahanaysa adaa waxaaga soo dabanayso laakiin haddaa maalin walba hal malaay kugu keeno mar walba gaaji ma ka bixaysa jagas ka dhig marka insha Allah nagu soo biir waxaan rajeynaa caafimaad iyo bashbash waa inuu muuqaalka xigo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh